السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام يا مال والله وديك دعوة لسان يسير والله أمريكا هذه مغلسان به مقال كان ما أنت وحين كذا حد يدونا لو أحرم أمريكا كلا دول محمد رب الفيرين دونا درشدي سوماليلاند عبد الرحمن عرّا وكوسو بحي أيان بالنعم من الأرض من الأرض كلا دول مركها بالعين وكفيرين دونا إلا يبقى لنا سؤالات وكحر لسان إسبدل كسوماليلاند كذا عينا وحياة إنها يكوهيانا والقار كم إذا أي شيء دونا waxaan kaloo ka hadli doonaa Axmed Madoobe oo markaa soo saaray liis magacaabis xildhibaana markii ugu horeysay maqal xildhibaana la magacaabay maaha waa la doortay saddex la imo laba Axmed baan kala baxaya maahan waa magacaabis aydaana baldoor kelimo ayaan ka sheegi doonaa soo dhawaada meel walba joogtaan isi walba oo markaa aad maqlaysaaba Cabdiraxmaan Cirro ayaa markii ugu horeysay noqday madaxweynaha maamulka Somaliland وقف يقول ريو قرحج ساحة وحيل كان قبطي مدة 30 سنة كل سنة بقول سنة سدح دي بقى ود بيسي عبد الرحمن كي هراء حيل كحوق الله طوري أما يجلس لورنجي عبد الرحمن طور عبد الرحمن كلا أي يمالي 30 سنة كدي أسوون حال سمحان نقل دونتها أي نقول فين دونا عبد الرحمن طور هو مدحولي يقول ريو مملكة عيد دورتان أولي بعادي لو دورتي لغة هلا قبطي ممامولي كرتيد نوع حكومي كرتيد arrimo aad tiro badan oo hadii loo baahdo aan markaa muuqaal ka sameyn doono iyo taariikh madow oo aan ogaaday xilliyadii ay socdeen dagaaladii SSC ayaa dhacay xilliga ciidanka ka dambeeyay ninka wuxuu go'aansaday inuu xilkaasi markaa intii la dagaalami lahaa uu markaa isaga dago xilka muuqaalkan arkaysaan oo musabixi oo markaa taagan shirkii Boorama oo leh waxa aan rabno oo kaliya hadii soo baxaan baa shirka ku yeelina wixii ka soo baxay haddii waxa aan rabnay soo bixi waayaan waa dagaalameyna markii ku guuleystay uu ka degay Cabdiraxmaan Tuur oo xilka uu qabtay cigaalna wati xasuuqan ogaa ragii Muuse ka geystay Burco tamarka waa taariikh hore dheer ninka hadda yimaaday Raab boqolaal su'aalood baa ku xareeraysan waxyaalaha marka ugu horeysay inta lagu eegay waxa weeye ninkaan ma loo dhiibi doonaa maamulkii oo dhan oo awoodda inuu hogaamiyo ma loo ogolaan doonaa hadday tahay xagga dhaqaalaha iyo hadday tahay xagga ciidanka gasto ciidanku u baahay qabiil badanna hadda ay suubayeen waa su'aasha ugu horeysay ilaha dhaqaalaha sida Berbera sida Garoomada sida Hargeyso sida Burco sida xuduudda shishe ee Djibouti meelaha ilaha dhaqaalaha ninkaan ma lagu reejin doonaa asoo maamuli doonaa mise raggii joogay baa lagu sii haysan doonaa oo diidi doonaa taasoo laga yaabo dagaal ka dhasho waa su'aalaha ugu horeeya la isweydiinayo waxyaalaha kale oo meeshan yaala ونكان لغة تجابين دونه لغة أوغان دونه هوغان نمديس وحكا بدا دقاق إساسي بحو كييري دونا بسيدي موسو أرد دونا هوكا إنو قادنا عن دقالنا سوى مقع قبيل أما مقع سوماليلاند هو بسيو لفري سان دونا حقوقا عيد دونا إساسي دي أيقو عانستا إنو يقوضو إنو فرحكا قاد بساسو قادة دونا بس دقاقو أيو سيوالي دونا وسؤالها أقوه رأيدونا لو باهي إندا إيش الوحي وانا لبدر نمد دورو hadduu yiraahdo waan iska deynaa SSC hadda soo xilqa baaxanka lagu eedeeyay Iraq inuu markaas yahay ninkii ciidanka haligay ninka dagaalka fashilay adaad maqasho conspiracy theory hargeysay taala waxaan muddo badan isweydiiyay sida ninka shacabka ee mucaaradka hargeysa ka fadhiya uu ciidankii Muuse watay inuu jabo uu lug yeelan kara kan iyo mataqaana aan sida ku shino inii waa eedeemo hadda soo xilka aan bafuuliba ninka banaanka u yeela marka wuxuu ka yeeli doonaa labada dhinacba waa laba dhinac asaga u sahleen haddii la iska deynaynaana dalba maamulkood kala goysay dii awalba inuu SC god rabtayo qabiil baa loo kicin doonaa hadduu yiraahdo xoog baan ku doonaynaana hadda rag asaga ka horeeya keeni waayo taasna waa ka sii dar wuxuu ka yeeli doonaa marka laba garanayo laakiin waxyaalaha hor yaala oo la arki doono qaab ku maareyn doono waxyaalaha kale aan islaahay ninka way hor yaala waxa ka mid ah beesha habar jecel la yiraahdo هذا شاطئ قبيل بحرتين على ما يسميستين هو بيلي يمادين وليبا هو عصب أن نقول مش أوكي يمادين بيتوبيا لكن لما قرنايو سوماليلاند توما إنسان لهين بابور طيار يركي عبد بلاياش عقريح على السعر أنا كسر ما كسب يسنا أقول كدبركي هو كودي أي جوش عدا وصل تغير وحين تكدب بينهم كانوا حي لي يمادين بابور يركي بسعرية مركز هو كي أي توبيا عنك قواعد قبل الله سومالي يسيجرتي هو لا يقوم بينهم كسر لي يمادين على باي سميستين مقع بيولا بحين دينع والبا دغال باي كغا جيران باشاس iyo ninkaanu inta aynu ognahay connection fiican kama dhaxeeyo wuxuu sameyn doonaa سبب وقن عندنا إنه يدرك تشوشيا
isaga ay dhulbahante sidee hawshoodu loo kala guri doonaa waa kale ayadana hoose oo qabali ah oo ayadana topic kale ayadana gooniya dhaqaalaha waan sheega arrinta Ethiopia iyo heshiiskii badda ninkan wuxuu ka yeeli doonaa awood buu leeyahay Ethiopia ma siinayno baxa inuu yiraahdo Ethiopia gacmaha kula jirta maamulkaas ciidamo xoog dhulka jooga fargal xoog leh ku haysaa hatta way soo geli karaan arkaysa waxaan maqlaynaa in ciidamo ay keeneen dhinaca iyo awdal ciidamada baan maqlaynaa oo dhulka la soo galay waa maamul Soomaaliyeed awood Ethiopia isaga dhiciyaan ma laha intii lagu ognahay markay meel iska dhigno qiimo Japan Hargeysa laga soo sheego dadka Soomaaliland jooga bay leeyihiin markii laga tago xoogaa amni ay haystaan awood ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo fikri ahaan waa Soomaaliya caadi ah dawlad ma yahay maxay ka sameyn karayaan way artaas su'aal u baahan inaynu cidana isweydiino hadduu diiday iyo hadduu yeelaba labaduba waa laba naarood oo kala daran mid uu yeeli doonase lama garanayo dhawr markaad ka fiirsan marka xaaladda ka taagan meesha loo yaqaano Hargeysa ninkii u qabo marka inay hadda xaaladdu kala dagayso oo barwaaqo ay galayaan barwaaqo meesha ka imaanayso meeshaasi waxyaal fara badan baa hursan markaysa ciidamadii iyo qabiiladii waa kala hubaysan yihiin maamulkii ka loo dhiibi doonaa dawladii shisheeye oo nimankii hore saaxiibka la ahaayeen iyo saaxiibadii hore nimankii hore saaxiibka la ahaayeen sida Ismaaciil Umar Geelle sida Xasan Sheekh Maxamuud sida dawladda Ethiopia maxay ka yeeli doonaan sida Imaaraadka Carabta say isugu wada daladii hore siyaasadeeda laga cabanayay sidee isugu wadi doonaa markaysa waa su'aalo marka loo baahan yahay in la fiiriyo dhankii markaad fiiriso ahzaabtii mucaaradka doonaa falanqeyno kala duwanna waynu ka sameyn doonaa taaytaas laga baxaya dhanka magaalada Kismaayo markii aad fiiriso Axmed Madow wuxuu soo saaray lister oo la yiri wax xildhibaano wax ma jiray waxa lagu dhawaaqay xukuumad waxa lagu dhawaaqay wasiiro waxa lagu dhawaaqay agaasimayaal maqli jiray laakiin xildhibaanada lagu dhawaaqay waa rikood lagu cusub weey Axmed Madow asoo marka Xasan iyo Xamse ku xumaynaya ayuu bahashu u dhiiqeynaya si aan waligeed la arag buu dhiiqeynaya marka uu iska soo qoray saaq maanta la soo saaray waa dhaarinaya bal leeyahay ka bacdi gudoomiye doorada ka bacdi Axmed Madow doorada arrintaas imse dhacaysa in the next 5 days ay waxa dhacayaan maanta lagu dhawaaqay xildhibaanada xalal la qorqoray kulay wixii ka horeeyay ka bacdina waa dhaar ka bacdina gudoonka dooranaya bal leeyahay ka bacdi Axmed Madow dooranayaan ilaa 25 ka bish arrinta halkaas markay marayso waxaad arkaysaa markaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse hadalkoodii wuxuu iska noqday habaar iyo hadal uu warbaahinta la soo marsiiyay wuxuu saameyn kuma yeelan karaan waxa Axmed Madow ka sameeyay arrintaas hoosteedu ka xariiqnay halkaas ku dhamaatay kullay waxa kaliya oo Xasan hadda u dhiman doonto waxa uu inuu xoogaa dambe uu siyaado ma aqoonsani maamul ma ahan xoogaa lugaha uu si hahayo maybe dhowr bilood dambe laakiin inta ka dambeeya aysan ku qasbanaan doonaa sidii uu caanka hore ugu ahaa inuu yiraahdo iska soo fariista markaysa halkaas ay maraysaa ninkaasna wixii uu qasan jiray ayuu qastay wafdi baa la soo diray Kenyana maxaa la yiraahdaa waa loo hadlayaa kan weeye mikrofon Xamsaha loo dhiibo waxa ay muraabir ku soo dhamaaday markaysa Xasan marka waa tookadiisi muxuu asagu doorashada u lahaa waan sameynaya xageeb Xasan la aadi doonaa ayadana waa gal kale gooni ah oo falaqeyntiida ayadana gooni oo sameyn doona aad baan salaam idin soo koobiyo assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh